balse ku-xigeenka gobolka Hawd Maxamed Dayib ayaa maanta si rasmi ah xilka uu kala wareejiyay hogaankii hore iyo hogaanka cusub ee ururka dhalinyarada Bila Voluntary kuwaas oo dhawaan loo doortay hogaanka ururkaasi. Munaasabada xil wareejintan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Beligubadle, ahda waxbarashada, dugsiyada, xubno ka socda bulshada iyo marti sharaf kale. Mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa ku amaanay ururka Bila Voluntary kaalinta muuqda ay ka qaateen adeegyada bulshada iyo hawlaha horumarineed ee xarunta gobolka Hawd. Balse ku-xigeenka ayaa ugu dambeyntii hogaanka cusub u rajeeyay guul iyo in ay sii xoojiyaan adeegyada iyo waxqabadka urur bulshada uu hayo. fiican ayay soo jeediyeen bini'aadamku markuu wax wanaagsan qabto waxa uu mudan yahay in la dhiirigeliyo, lagu amaano, lagu bogaadiyo waxqabadyada tirada badan ee halkan nagu soo bandhigeen. runtii wax wada taabanayay bay haayeen oo bulshadu ay goobjoog u ahayd, markhaati bay u sameeyeen iyaguna waa kuwa horteena cidda inoogu xil saaran ama in mandate-ka u siinay waa dawladeena hoose. inagu bulsho ahaan waxaynu xaq inoogu leeyahay inaynu ka taageerno inay cashuurta ururiyaan, inay dhaqaale sameeyaan, laakiin dhaqaalahaasi waa inuu ku noqdo bulshadana uu ka muuqdo. waayo iminka markii dhaqaalaha laga hadlayay kaabayaasha dhaqaalaha ee la doonayay horumarka bulshada inay ka qayb noqdaan, cidda laga rabo inay horumarisaa waxa weeyaan maamulka degmada. waqtigan soo yareeyaa la yidhi waxaan taageersanahay qorshaha fiican oo aan markhaati ka ahay inay qabteen dhalinyaradaasi intii aan degmada joogay. muddo badan baan ku noolaa, waan garanayaa halkay ahayd iyo halkay soo gaarsiiyeen iyo xabeeyab qabteen. kolley wixii ay tamar daraan iyo dhaqaale daraan ay gaarsiiyeen. maxsuumay ururka Bila dhalinyarada waxaan runtii maraka ahay ururkii ugu waxqabadka badnaa dhalinyaro ahaan intii ay ururkaasu samaysmay. wax badan buu ka qabtay deegaanka sida daraasadana ka muuqatay, inkastoo ay ahayd in daraasadu san ka ballaarato oo yaan marnaba leecin. sida runtii ururka waxa ku midaysan oo ku bahoobay dhalinyaro ku midaysan aqoon, ku midaysan akhlaaq, ku midaysan niyad samaan ay deegaankooda u hayaan. waa bogaad ay qabteen kuwii hore in halkiiga ay taagnaadaan iyo ay dhaqaajiyeen. dhaqaalahan keenay halkaa umay qurqursoyn magaalada yaan u malaynaya xileedkayga oo sida dastuurka ururku sheegayo muddo 1 sano ah. waxaan ka shaqayn doonaa siyaanbaqaadidda horumarinta gobolka Hawd guud ahaan, annagoo mudnaanta siinayna qorshaha iyo visionka iyo missionka ururka u qorsheeya. wayna barbar taagay qorin badan oo ka qaadayay biyo waxa uu soo qotaa ururka biyo dowladda soo isku qof oo dadka darankiina kaliya markaasina lika ururka biyo dowladda soo isku qof waxa uu weeyna qabtaan wayna dhigowdaga dhigay dadka dagaal ugu leeyahay waxa uu ugu fuliyaa bal way sababaan liisayay si wada soo qaata ma dowladda hoose كالبلدي مالي الفلوس معي وعشوز الكتروني وعقبت أنا قوانوها وغاركتها يعني واحد كلها هالسنة لما صوري من مرة واحد يقول مسكتين هاي اليوم إنجليزا أنا لو سوينا لو أعطانا أنا قلت يوم ده تذكرنا ولا لا وتصل إنه أنا حاولنا قبلين تيجي إنجليزا ما يحرين فكوا حاولنا كرا وامرأة يجي أذي أدنو فرسنا oo maanta halkan inoogu soo bandhigay daraasad uu ka soo sameeyay magaalada Beligubadle ka sameeyay deegaanka Beligubadle ka soo sameeyay inoo soo bandhigay, sidoo kalena inoo soo bandhigay waxqabadkiisii ilaa 2022kii ilaa tii u dambeysay anigu aan joogay 26 ahayd inoo soo bandhigay waxqabadkiisu soo qabtay. sidoo kalena marka saddexaadna iyaguna xilkii la kala wareegeen ururka oo gudoomiye hore iyo gudoomiye cusub la kala wareegeen. dhammaantiin aad iyo aad mahadsantihiin. waan soo dhaweynaynaa kullu cilmi baadhistiisa sameeyna aad bay idin farxad gelinaysan xaaladda jirta iyo problemka waxa ku jira iyo cause kala soo ogaado. inkastaana recommendation-kii iyo arkayno wax walba marka daraasad la sameeyo waxa finalist lagu soo daraa, finalist la soo helo conclusion-kii waxa la soo gabagabeeyo lagu soo daraa iyo hal yaqaan recommendation-ka ama tala bixin waxa ay xasan soo jeedinayna tala bixin kulama arkayga xagga daba ka stari doonta.